halkan waa xerada ciidamada ee Generaal Daawud Cabdulle Xirsi oo talis u ah guutada 18aad ciidamada Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana maanta booqasho ku yimid taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Sareeyo Guuto Maxamed Taliil Biixi taliyaha guutada taliyaha dugsiga Turkisom iyo saraakiil Turki ah ayaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Sareeyo Guuto Maxamed Taliil Biixi waxaana taliyaha kormeer guud ku sameeyay ugu horeen xerada guutada 18aad ee Commandoska Gorgor ee Generaal Daawud intaasi kadib taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Sareeyo Guuto Maxamed Taliil Biixi ayaa askar ka tirsan guutada 18aad ee ciidamada Gorgor u furay tababar la xiriira taatikada ciidamada taasoo ujeedkeedu uu yahay in sare loo qaado awoodda ciidamada Sareeyo Guuto Maxamed Taliil Biixi taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya oo ugu horeyn sharaxay muhiimadda tababarka ciidanka ayaa kula dardaarmay askarta guutada 18aad ee ciidanka Gorgor inay muujiyaan xiliyada howlgalada isku duubnaan dhexdooda ah hogaaminta ninka hogaamiyaha maxaa laga rabaa markii la yiraahdo aad u farba ninka hogaamiyaha oo naftiisa kaliya mas'uul kama aha wuxuu mas'uul ka yahay badbaadada iyo badqabka ciidanka uu wato iyo hubkooda iyo gaadiidkooda inuu horta badbaadiyo isla markaasna cadawga u geysto khasaaro marka waa casharaad u ballaaran waxaan rajaynaynaa inaad barataan kabacdina u gudbisaan ciidanka aad xukuntaan taliska ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinkii dambe si gaar ah ugu hoolanaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka sida tababarada iyo qalabeyntooda taasi oo ujeedkeedu uu yahay in la soo saaro ciidan Soomaaliyeed oo awood u leh inay qabtaan mas'uuliyadda ammaanka guud ee dalka Cabdi Fataax Cabduqaadir Akhyaar warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Muqdisho.